kusoo dhowaada qaybtii lixaad ee taxanaha maalmihii tegay anigoo maahir jaamacadanah ayaa idinla socodsiinaya. fardowsa sidayda oo kale mar way naxdaa, mar way qosashaa, mar waxay isdhahdaa war waxaan macquul ka weyn. waxaan bilownay aniga iyo fardowsa inaan aad u qosolno markaan isku dhufsanno xisaabaha jira sida lamaanaha faraxsan ee jacaylka guurkooda ku wada caweynaya halkaa iyo wadaadkii meheriyey oo isagoo waalan hooyadii ay sidato. laakiin qosolkeenna waxay dadku badi u arkayeen laba dhalinyaro ah oo haasaawe qanacsanaan buuxda leh wata, ha yeeshee ka duwan xaalka sidaas oo diraddu waa berri subax maxaa dhici doona. habeenkaas fardowsa waxa isaga laabatay asxaabteedii iyada oo yaaban weliba sii qoslaysa ayay iga sii dhaqaaqday. anna waxaan la qaatay habeenkaas rakaabkii aan isku gaariga ahayn oo aan ku laabtay. waa la wada seexday, laakiin xilli ay ku beegan tahay adinka salaada subax ayaa hurdada la iska kaagiciyey. waxaan aniga iyo koox raga abaarnay masjid weyn oo dhagax ah oo ku yaala tuuladaas. masjidka markaan gudaha u galnay waxaaba xidhay badi xuubka caarada, waxaana jooga nin mu'adim ah. 12 rakaabkeennii ah iyo 2 ruux oo deegaanka ayaan ku wada tukannay si jameeca ah salaada subax. runtii habaaska ka muuqda masjidka waxaad malaynaysaa inaan sannado lagu tukan. taasina waa mid ka mid ah astaamaha iyo natiijooyinka colaadaha sokeeye. markii aan ka soo laabannay masjidka oo aan u nimid gaarigeennii waxaa nagula wargeliyey in gaarigii kale ay saarnaayeen ibraahim, ikraan iyo fardowsa uu saacad ka hor dhaqaaqay, isagoo oo aan gaariga ay isweeshan lahaayeen waxba ogeysiin. annaguse xilli iftiinka isbuuxiyey ayaan ka dhaqaaqnay goobta annagoo aan haysan ballanqaadkii xalay ee ahaa in ciidanna mariyo waddada nagula sii dari doono. laakiin maleeshiyadii ballanqaadkaas sameeyey waa kuwa xalay ka dhaadhiciyey inuu keligii safro gaarigaa kale, kuna sii dareen 2 nin oo hubeysan. qof walba oo ka mida rakaabka wuxuu afka ku hayay aayado qur'aan ah si ilaah uu nooga xijaabo dhibta laga sheegayo waddada aan ku soconno. ugu yaraan daqiiqado markaan soconnay ayaa waxaanu gudbay gaari aad u hubeysan oo ay dusha ka saaran yihiin ilaa iyo 10 nin oo badi qoriga siliska wata ama PKM. waxaana gaarigaa iskale mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta dalka. waxaan ku nidhi darawalkeennii war raggan ha ka harin si aan cidlana loogu helin. runtii markaan eegno xawaaraha ay ku socdeen iyo marka ayna arkeen sida ay u dhimeen xawaarahooda ayaa qudheeda ahayd farriin ah in shacabkeennan ay wehel iyo garab u noqon doonaan. waa arrin weli ku jirta xusuustayda. masaafo kooban ayay isu jiraan gawaarida markaan wadihii gaarigeennu uu dheeraynayaa, annaguna cabsi ayaan dhinacyada hawdka la eegaynaa. dhulku waa mid aad u burbursan, godad, boholo iyo dhir soo gashay waddada. qiyaastii saacad iyo daqiiqada kadib waxaan maqalnay rasaas xoog leh sida 2 dhinac oo hubeysan oo uu dagaal dhex marayo. darawalkii wuxuu dhimay ama yareeyey xawaarihii socodka gaariga, waayo rasaasta qaar ayaa u soo dhacaysay dhankeenna. qadar 5 daqiiqo ah buu taagnaa gaarigeennu iyadoo aanu cidna bannaanka uga degin. rasaastii way joogsatay, kadibna si tartiiba ayaan horay ugu sii dhaqaaqnay. waxaa naga hor yimi 2 nin oo mid wata qoriga siliska ama PKM-ka, kan kalena AK-47 oo taagan 2 dhinac ee waddada. waxay nagu tilmaamayeen ama nagu hageen gacanta si aan horay ugu soo soconno. waan soo gaarnay, kadib hore ayaan u soo dhaafnay. waxaan dul nimi wax aan marnaba maankeenu geli karin. waa gaarigii naga soo tegay xalay oo waddada si dadaba u yaalla. waxaan arkay ibraahim iyo oday kale oo ay rasaas ku taallo oo dhiiggooda mare lagu celinayo. dhinaca kale ayaan eegay 3 gabdhood iyo 2 kale oo feerka iyo jirdilka ka muuqda wejiyadooda aanay indhuhu u dulqaadan karin eegistooda. way oynayaan, waxayna wada fadhiyaan meel ka yara fog halka uu yaallo gaarigoodii ay saarnaayeen. isla raggii maleeshiyada ahaa ee u soo raacay galbinta gaarigan iyo kuwa iyaga ka soo horreeyey oo waddada sii galayba waxay gebi ahaan bacsadeen rakaabkii gaarigan. way furteen oo wixii hanti ahaa way ka qaateen. ilaa xalayba gabdhaha waxay u kaxaysanayeen hawdka. ibraahim iyo nin oday ah oo damcay inay wax un ka yeelaan badbaadada gabdhaha waxaa toogtay 1 nin oo maleeshiyada ka mid ah. laakiin labaduba weli way nool yihiin. weliba ibraahim waxa ay xabaddu kaga taallaa bowdada ama cajarka oo laf ayaa jaban. odayga kalena caloosha ayaa bannaanka taalla.
haddii ay jirto maalin foolxumo iyo musiibo loo astayn karo si qaas ah anigu maalintaas ayaan siin lahaa laakiin gabdhaha qaar ayuu mustaqbalkoodii u badbaaday oo uu ilaah ka daahay shartii maleeshiyada sababta gaariga dadabka loogu dhigay waxay ahayd dabin ay maleeshiyada ku xisaabtamaysay oo ahaa inay marka dambena gaarigeenna wacdaro u dhigaan laakiin ilaah ayaa ka diday oo waxa ay ciidamada shirkadaasi lahayd ay ka soo gaareen dad shacaba oo ay rag hubaysani si baan u dulaysanayaan annaguna gaariga labaad ahaa waxay noo ahaatay furasho ilaah noo soo diray waxaan u tegay ibraahim oo aan miir lahayn oo oohin iyo buuq isku daraya waan ka tegay waxaan aaday gabdhihii fardowsa ayaa ii soo kacday inta aanan gaarin dhankooda waxay igu tiri dhammaan gabdhaha halkaas fadhiya oo aan aniga ku jiro waxba nooma aysan reeban burcaddii kadibna oohin ayay la fadhiisatay waxaan garan waayey wax aan dhaho ama ku samarsiiyo fardowsa oo meesheedii oohin la fadhida ayaan ka tegay waxaan u gudbay gabdhihii kale hal mida oo ayaga ka mid ahna way la hadliweysay waxaan u soo laabtay fardowsa waxaan qabtay garabka oo kor baan u istaajiyey waxaan u soo kaxeeyey meel yara hadh ah kadib waxaan u sheegay in maleeshiyadii baxsatay hadda markii ay ciidanka shirkadda israsaaseeyeen haddana waa muhiim in meeshan halista ah laga baxo oo haddii ay ciidankan shirkaddu iska tagaan waxaan geli karnaa halis kale sidaa awgeed mar haddaad nooshihiin gabdhow intaas ayaa muhiima ee fadlan ka soo dhaadhici saaxiibada gaariga ha soo fuulaan waxaan intaa u raaciyey in laba nin oo ibraahim ka mid yahay aad u dhiigbaxayaan marka waa muhiim inaad soo fuushaan gaariga fardowsa waa gabadh aad u maskax furan markiiba waxay qaadatay taladii oo saaxiibadeed ayay ka soo dhaadhicisay waxaanse la yaabay ibraahim oo halkaas ku dhiigbaxaya ayay ikraan iyadoon xitaa eegin dhankiisa fuushay baskii xitaa markii aynu saaraynay kursiga dambe dhaawaca ibraahim gabadha ikraana marna ma aysan soo jalleecin intaas waa yaab aniga igu kooban fardowsa ayaa ka codsaday in gaarigeenna oo yara bannaan markaas ay ku soo biirto wayna iga aqbashay waxaan markiiba ka dhaqaaqnay goobta waxayna ii sheegtay in darawalkooda wax ka og yahay shirqoolka waayo waxa gabdhaha la sahmiyey inta ay joogeen tuulada waxaana ku talagalku ahaa in gaarigan ay saaran yihiin gabdhaha qurxoon horta keligii bannaanka lagu helo waxaana ugu horreeyey oo gabdhaha la degay raggii hubaysnaa ee labada ahaa ee gaariga galbinayay weliba dhinac ka saarnaa sheekada fardowsa ma beeninayo waayo damaca maleeshiyada iyo shirqoolkoodiiba sidii ay rabeen buu u dhacay waxaanse fahmi karin sida nin darawala shacabkiisa ama rakaabkiisa uu halistaa u gelin karo waanse dul tegi doonnaa xaqiiqda waxay kaloo fardowsa ii sheegtay xalay markii ay iga soo tagtay in sheekadii wadaadkii wax mehriyey ay wax uga taabatay ikraan kadibna ibraahim iyo ikraan u dhex maray muran laga qarinayay inay fahamto fardowsa oo marka ay ka soo baxayeen tuulada ma wanaagsanayn xidhiidhka ibraahim iyo ikraan weliba waxa ay kala fadhiisteen laba kursi oo aad u kala fog haddaba ibraahim wuxuu dhaawacan gaaray isagoo u ciilqaba dad aan anigu ka mid ahay dabcan fardowsana ay ku jirto laakiin anigu waan sahashaday bixinta xogtan aad baana oga naxay markii ay fardowsa sidaa wax igu sheegtay ma ahayn ku talagalkayga in warkan uu colaad keeno waxaan muddo soconnaba waxaan gaarnay degmada jilib meel MCH ah oo sida cisbitaal u shaqaynaysa ayaan dhignay labadii ruux ee dhaawaca ahaa intaan ku mashquulsanayn arrinta dhaawaca ayay ikraan oo boorsadii ibraahim wada ama sida u timid fardowsa kuna tiri abbaayo boorsadan iisii qabo islaan eedda iigu beegan oo halkan deggan ayaan xaalkayga uga soo warramayaa fardowsa waxay tidhi waa yahay laakiin ikraan markiiba waxay ku dhacday ama raacday gaari si joogtaa alaab ugu kala qaada jilib iyo kismaayo xilligaasba magaalada waa ay ka sii baxaysay fardowsana dabcan waxay niyadda iska lahayd saaxiibtaa may adigana eeddadeed kuu kaxayso laakiin sheekaduba eedda kuma jirto ee waa qorshe ay ikraan leedahay laakiin maxaa keenay inay baxsato ikraan iyadoo uu ibraahim ku jiro xaaladdan armay caafimaad ahaan wax gaareen maskaxiyan ayada kolley way naga xogogaalsan tahay ama waxay sii fahmaysaa ruuxa uu ibraahim noqon karo armay meel u degdegaysaa aaway jacaylkii iyo guurkii intaas oo weydiimo ahba waxay iman doonaan marka aan ku baraarugno inay ikraan baxsatay
aniga iyo Fardowsa oo bannaanka cisbitaalka fadhina ayaa waxaana dhaafay rag hubaysan oo caraysan muuqaal ahaan u ekaa reer miyi wax yar kadibna waxaan ogaanay in raggan ay yihiin Ibraahim reerkiisa oo xogta helay laakiin waxay wax kasta isbedeleen markii uu saacado kadib uu Ibraahim la sunnaaxay aaway xaaskaygii Ikraan waayo siduu u dhaawacmay marna ma aysan dul iman isaguna indhihiisu marna ma aysan qabanin ayada haddii la waayo xaaskiisa soo aniga iyo Fardowsa ma nihin kuwii u sabab ahaa khilaafkoodii ka hor inta aanay shilku dhicin haddaba marka la wada ogaado inaysan joogin Ikraan maxaan dadkan reer miyiga ee hubaysan weliba wiilkoodii dhaawacan yahay kala kulmi karnaa nin mucaashaqa oo waayay gacalisadiisii xilligii ugu baahnaa maxaa lagala kulmi karaa yaa halistaas nagu helin doona xagee qisaskan ku kulmi doonaan maxaa xiga oo dhici kara la soco qaybta 7 ee maalmihii